شديدة وعنيه قاب كذا لو تجي تما إذن إركيو سيدا في أرحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن دعانا وناكسن مركلي فيديو عصب جنن كادنا قلا سعوتان وحباب فاميلي أنو مسين سو دوادا مالي وناكسن هبين وناكسن صباح وناكسن ظهر وناكسن عصر وناكسن كل شيء وناكسن أصحابتك عصب سو دوادا أصحاب توري اللي جوك سو كل سو دوادا لما انتي بسو دوادا إن شاء الله ومركلي قصة كهر فضلن جنن كتاك عصتا سبسكرايب نوصار لايك شير كومنت صاحب دالو دقادا مستهاي سبسكرايب دكو سارين هاي لايك تلاي نوريب إن شاء الله لما انتي نوعيدين ودا جعلها إن شاء الله waxaan wada qisada waxaan aadayna dalka Mexico aadayna insha Allah nakeen dhamaanteen waa soo raacayna Mexico qisada waxay ku dhacday hooyo lagu magacaabo Marina ayada iyo familkeeda waxay ku noolaayeen caasimadda Mexico City kadib waxaa dhacday in gabadheeda oo 15 jir maalin laga afduubtay in meel ay ka shaqeynayso oo kafeega laga cabo ama maqaahi waxaa dhacday gabadheeda markii la afduubtay in maalmo kadib taleefan loo soo diray oo 2 maalin kadib taleefan loo soo diray la yiri waxaan u baahanahay lacag madax furasho ah meel hebel ay keenaysaa meel hebel markaa keentid oo iska dhigaysaa oo iska baxaysaa kadib gabadhaadana ku soo deynina isla markaas ku soo deynina okay betri lacag aysan haynin ay deensatay raadisay lacagtii geysay meeshii dhigtay kadib waxaa dhacday in gabadheeda aan loo soo deynin sanada kadib 2012 waa markii qisada markii gabadheeda ay weysay waxay ku dhaqaaqday inay gabadheeda baadi goobto ay raadiso dadkii gabadheedii maxay tood yacni oo afduubtay kadib waxaa dhacday in 2 bilood kadib gabadheeda meedkeeda ay ka heshay meel gurigeeda u dhow ayadoo taalo meedka gabadheedii qaadatay oo iska duugatay waxay go'aansatay marka inay dabagal ku sameysay yani dadkaas gabadheeda dilo oo intay afduubteen lacagtii qaata hadana dile inay dabagasho isla marka waxay sameysatay passport fake ah waxay sameysatay yani qof kale iska dhigtay ID fake ah waxyaabo far badan oo fake ah sameysatay in ay iska bedeshay colorka timaha in qof weyn ahayd u labisatay sida gaangiska ama ciyaal suuqiinta waxyaabo far badan yani nolosheeda ka bedeshay marka saas ay sameynaysa yani qofna lama oga oo boolis iyo wax dabagalaya ma jiraan yani oo nimankaas raadinayo isla marka waxaa dhacday in ay u suurta gashay in dadkii oo gaangiska ay ku dhex milanta ee weliba ka dhaadhicisa inay tahay ayadana qof rabta inay gaangiska kusoo biirto marka ay helbi garayaan yani ay caawiyaan way ogolaadeen midba marba guri u tagaysa waxay tagtay 10 kamida yani dadkii oo gabadheeda dilo guryahoodii dadkii ku dhex milantay dadkii waxay la noqotay best friend waxaa dhacday in mid kastaba ay soo qabanaysay boolisku dhiibaysay ay soo qabanaysay boolisku dhiibaysay 10kood yani meel ku wada balamisay isla markiiba gaarigiisa u wada waxay geysay saldhig booliska geysay booliska gacanta gelis nimanka waa la xiray soo hooy geysiyada maahan gabadheed u argudayso nimankii markii la xiray waxaa dhacday marka isla maalintiiba inuu ka fakaday ninkii yani oo gabadha 10 nin ma wada dilin gabadha laakiin mid kamid ah dilo inta kala marqaati alahan way taagnaayeen ninka gabadha dilo u fakaday markuu fakaday isla markiiba in ayada dawladda waxay ka dalbatay in la ilaaliyo because ninkaas uu fakaday nafsideedu uga cabsanayso waxay kaloo sameysay yani Mexico waxaa ka jira sharciyo oo ah dadkan oo yani kontrabanka iyo waxaas iyo drugska yani gaangiskan in wax kasta u fudud yihiin gaangiska ka jira yani dalka Mexico xitaa madaxweynaha oo dalkaas yani ninka dalkaas madaxweynaha ka xitaa way ka awood badan yihiin because gaangiska yani waxa waaye group weyn oo isku xiran oo min gobol ilaa magaalo isku xiran oo og oo mid kamid ah hadii la xiro kuwa kale ay soo badbaadinayaan marka dawladana ma ka qaban karto yani wax talaabo ay ka qaadi karto ma jirto because dawladda ayada lafeed u cabsanayso marka saas daraadeed marka waxay ku qasban tahay yani inay gaangiska faarood ka baxday ay ka aamusto waxaa lagu leeyahay Mexico maalinta aan waxba la dilin yani waxaa la dilaa 20 qofood 20 qofood yani maalinta aan waxba la dilin waxaa lagu leeyahay Mexico oo meedadkooda laga helay jidadka waa 20 qofood waa maalinta aan waxba la dilin oo booliska ay ku raahdeen yani markay waxa dhacday in
ninkii markuu fakaday booliska ee caawimaad weydiisatay booliska hayay yiraahdeen laakiin haddana waxaa waaye booliska because ayagaaba cabsanatooda haysto waxaa dhacday marka maalin loo dabaaldegayo yacni oo maalinta haweenka adduunka hooyada iyadoo gurigeeda joogta gabadhii irida loo soo gargaraacay yaa iriduu soo gargaraac mataqaaniin waa mid kamid ah nimankii yacni ninkii fakada oo weliba gabadheeda dilay iriduu soo gargaraacay wuu qabtay 12 xabadood oo wuxuu kaga dhuftay madaxa 3 xabadood wuxuu kaga dhuftay laabta 15 xabadood oo ku dhuftay wuu soo qaaday meedkeedii wuxuu dhigay yacni bartanka magaalada yacni xaafadda ee deganeed bartankeeda meesha highwayga ee baabuurta maraayeen oo meedka dhigay uu ka dhaqaajiyay dadkii marka oo ciidamada booliska wixii la wacay meedkii haddii la fiiriyo waaba maariin oo yacni gabadheeda u halgantay oo xaqi gabadheeda usoo dhicinaysay ayadii saasaa lagu aasay magaaladii yacni Mexico marka waxaa ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo hooyadaas oo dowladda lagu cambaareynayo yacni inay samxeetood aysan gaangis waxba ka qabanin ee gabadhaas amnigeeda ay sugu waayeen waxyaabo fara badan nimanka ilaa hadda wiil lama soo qaban dowladda because Mexico ayada cabsanayso oo nafsadeeda la cabsanayso tan kale dhaqamada Mexico ka jira waxaa kamid in ilmaha marka uu 18 sano gaaro oo hub nooc rabo uu heli karo drugs nooc uu rabo heli karo soo marka waqtiga doonta wax diri kartid waqtiga doonta wax dhici kartid wax kufsan kartid soo Mexico yacni ma jirto sharci iyo kala dambeyn iyo dowlad iyo waxaas ma jiraan camera CCTV waxay qabatay yacni marka oo gabadha Marin gabadheeda markii la dilay camera CCTV waxay qabtay 3 nin daba socotay meesha ay ka shushubeysay kora idin soo saara fiidiyogeeda 3 nin daba socotay 3 nin hal nin markii koowaad uu raacay oo markii guri ka soo baxday yacni meesha qadamka ka soo baxay nin raacay 2 nin oo kalena ninka gadaashiisa socdeen marka taasi waxay cadeen u tahay yacni inuusan amni weyn ka jirin oo Mexico xaaladeeda ay tahay waxaa waa Allah sahlo saasay Marin ku dhimatay Marin reerkeed intii hartay isla markuu isaga baxsadeen Mexico waxay aadeen dalka Mareykanka galeen meengeli weydiisteen saasana Marin lagu aasay gabadheeda saasay maxay ku weysay ayadana gabadheeda 2 sano kadib geerid gabadheeda 2 sano kadibna ayadana waa la dilay oo isla ninkii gabadheeda dilay waxay bogeeda ku soo qortay intiisan dhiman ka hor ma harsan doono ilaa aan gabadheeda ninkii dilay aan dilo ama aan xabsi noloshiisa inta ka dhiman ku hubsado yacni lagama yaabo inaan harsado xitaa haddii aad fakato waan kaaga daba imaanaa meesha oo fakatay saasay habeenkii soo qortay subax waaga markuu baryana intuu u yimid guriga intuusan warkaasba aysan ka dhabeyninba intuu u yimid oo meesheedu ku dila saasaa Marin lagu aasay gabadheedii iyo iyadaba gabadheedii mar hore dhimatay way ka horeysay habartin saasaa lagu aasay familiga inta soo haray marka waxay aadeen Mareykanka dowladda ilaa hadda yacni kama aysan bixinin raaligelin ama jawaab laakiin kaliya waxay caddeeyeen inay dhimatay ayna dileen gaangiska markii ay dileen tan kale ay sameeyeen waxaa waaye warqada inta qoreen meeshan laabta ugu dhijiyeen ay dhaheen anagaan dilnay qof kasta oo isku dayin inuu dabagalo ama sirhin u ogaadana wadadaas u dambeysa ha isku dayin in anagana soo dabakacid ama anagana raadisid qofka doontid baa waxay hoos warqada ku qoreen booliska maysan dabagelin because booliska nafsadooda ayagoo cabsana oo gaangiska ka baqa saasay ku dhamaatay qisada Marin laakiin waa wallahi waa hooyo geesiyada because gabadheedii ninkii waxyeelay raadisay asagii asxaabtiisa soo waday xabsiga ku hubsatay hal dilo oo yacni way dhiman kartaa laakiin guush weyn ee skeerta waxaa kamid ah in horta wiil gabadheedii nimankii dil wiilasha dilan inta soo waday xabsi gelisay haba fakadan haba dilaan laakiin taas waaye waa hooyo geesiyada sembir waxaa fiican in ilmahaaga aad huri kartid naftaada in ilmahaaga qofka ilxun ku fiiriyo oo ilqaloocan ku fiiriyo in adigana aad 10 ilo qaloocan aad ku fiirin kartid muhiimada saas waaye qof kasta hooyo kasta waajib ah ka ilmaheeda xanaaneysato oo ilmaheedu wixii dhiba ay ka ilaaliso kulay insha Allah Ilaahay waalidiinteena hanoo dhaafo inta dhimatan Ilaahay noogu naxariisto inta noolna Ilaahay caafimaad iyo cimri dheer hanoo siiyo intaas ay ku dhantaa markii qisadeeni janalku waa xabaab waxaan rabaa gabar waxay igu tiri hadaayig Instagram-ka igu soo qortay
waxaa dhahdaa erayo waxaa jira dhahdid oo aniga af soomaali kaasaan aqaana adi maxaa u taqaana adiga soomaali ma tihid miya xabiibti ani soomaali waa ahay laakiin aniga meesha aan joogo ama meesha aan ku dhashay af soomaaliga siu ka yahay adiga waxaa laga yaaba maanta inaga haddii hadal aan dhaho aadan saan anigu dheh aadan aqoon oo si kale u taqaanin marka dadka ku fiirsanaya ma ahan hal qof iyo laba qof soomaali weyn oo ku fiirsanayso shanta gees shanta qaarad kaa fiirsanayso soo marka waa ku qasbanahay adiga saa u taqaanid iisoo qor inaan dhaho because maalin kasta ina era cusub baratid haddii social media ku jirto way fiican tahay xilliyada qaar aan waxaa igu dhacday marka aan waxyaabo aan kusoo qoro Facebook ama Instagramka in dadka qaar yiraahdaan aniga waxaan u kasaa yacni ereyga saas u ka taqaanid aniga ereyga saas kale u aqaan inay dhahaan marka ma ahan in aniga af Soomaali ka seenin oo aan af Soomaali maxay aanan aqoonin ama ma ahan in aniga Soomaali ahayn ani Soomaali ahay Soomaalinimadii shaka iga gelinin adeeryaalo ani Soomaali waa ahay laakiin af Soomaaliga aad weyn af Soomaaligana aad u ballaaran yahay soo marka erayada qaar waxaa laga yaabaa in adiga si u taqaan aan si u aqaano soo marka saas le waa xabiibtideed wax kale ma jiraan aad u mahadsantihiin dhammaantiin waa idin wada jeclahay channelku waa xabaab anigoo museen channelka please subscribe noo saar guusha wax yar nooga dhiman insha Allah guushana la gaarsiisa aan iskula wada dabaaldegno family xabaab subscribe hadduu kuu saaran yahay like share comment saxbida labadaga aad u mahadsan tahay like tiina iyo commentigiina dhiirigelina iyo aniga dhammaantiinba